السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saaxiibada ku xiran kanaalka aqoon dhaab waxaynu duubaynaa casharkii shanaad ee ereyada luqadda ingiliishka waynu ka akhri jirnay buugga photos and essential english word. intaana gudagelin duubidda casharkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay kanaalka subscribe, like and share intaa isu raaci. casharada inta badan waxaan la socodsiiyaa anigoo aadan karaamo. ereyga koobaad alien dib baan ka sheegaya macnihiisa. An alien is a creature, waa makhluuq from kaasoo ka yimi a different world, duni mataqaanaa kale. An alien is a creature, waa makhluuq from kaasoo ka yimi a different world, duni kale. The alienkii kam wuu yimi in peace, si nabada. The alienkii kam wuu yimi in peace, nabad ayuu ku yimi. kelmadda alien waxa weeyaan waa noole ilaahay abuuray oon dhulka ku noolayn. sawirka sidan ka muuqata waa waxaas. markaan baarbaaray cirfiid baa dadka qaar ugu dheheen, marka waa makhluuq laga yaaba meerayaasha kale inuu ku nool yahay. among waa dhexda. if haddii you are adigu among dhexda ugu jirto a certain things, shaya mataqaanaa cayiman. if haddii you are adigu among dhexda ugu jirto a certain things, shaya cayiman, they are all dhammaantood around you, way kugu wareegsan yihiin. they are all dhammaantood around you, way kugu wareegsan yihiin. there was waxaa jiray a red apple, tufaax cas, among ay ku wareegsan yihiin the green ones, kuwa mataqaanaa cagaar. there was waxaa jiray a red apple, tufaax mataqaanaa cas, among ay ku wareegsan yihiin the green ones, kuwa mataqaanaa cagaaran. chat waxa weeyaan chat waa liiska yar marka xogaha statisticska la isticmaalayo ama bandhiga mataqaana bandhigyada la sameynayo mataqaana la isticmaalo. computer science haddaad dhigatay waad ku aragtay man filaya. xisaabtana qeyb ayaad ku aragtay chapterada loo yaqaano statisticska waad ku aragtay. marka wax soo bandhigay sidoo kale ayaa la isticmaalaa. a chatku waa maxay? is a list, waa tixid of information, xog. waa tixid of information, xog. we use waynu isticmaalnaa chat ayaynu isticmaalnay to see saynu aragno how we had improved, sida mataqaanaan horumarnay. we use waynu isticmaalnay a chat ayaynu isticmaalnay to see saynu aragno how we had improved, sida mataqaanaan horumarnay. halka haddaad eegto waa maxay? waxaad ku arkaysaa chatku waa baalka ayay mataqaanaa kala sarsareeya. charts baa la dhahaa. marka sanadkii koobaad, sanadkii labaad, sanadkii saddexaad marba sina horumarinay waxaa la dhahaa baa lagu soo bandhigaya. cloud waa daruur. a cloud, daruurtu, is a group of water, waa koox biyaa. waa koox biyaa drops, taasoo kasoo daaysa in the sky, cirka. cloud, daruurtu, is a group of water, waa mataqaanaa koox biyaa drops, taasoo kasoo daaysa in the sky, cirka. the sky, cirku was wuxuu ahaa filled mid ay buuxiyeen with the white clouds, daruur cad. the sky, cirku was wuxuu ahaa filled mid ay buuxiyeen with white clouds, daruur mataqaanaa cad. comprehend waa fahan. to comprehend saad u fahanta something shay instead to understand it, waa inaad fahanto. to comprehend saad u fahanta something shay instead to understand, waa inaad fahanto it, shayga. Henry ninka la dhaho could not comprehend, muusan fahmin the message, risaaladii ama dhambaalkii. Henry ninka la dhaho could not comprehend, muusan fahmin the messageki muusan fahmin. describe waa qeexid. to describe saad u qeexda instead to say, waa inaad tiraahdo wara masal right, waa inaad qorto what someone, waxa mataqaanaa qof, wara masal something shay islay ku yahay. to describe inaad qeexdo
sidoo to say waa inaad tiraahdo or amase write waa inaad qorto what someone waxa wax or amase something shay isla ay ku yahay they would describe it way qeexeen their tree mataqaanaa geedkoodii as colorful mataqaanaa si midabaysan with gold ribbon iyagoo mataqaanaa uu ku jiro mataqaanaa gold ribbon xarig mataqaanaa dahabiya ama bahal yar saa loo rujinayo aan sidoo kale star iyo xidig they would describe way qeexeen their tree geedkoodii as colorful mataqaanaa si colorful midab ku badan yahay with the gold ribbon mataqaanaa dahabiya uu ku jiro xarig aan sidoo kale star xidig kelmadda ribbon macno kale way yeelataa ever waa xilli kasta ever means waxa weyn at any time xilli kasta at any time waa xilli kasta going aadidii aan aaday skiing aan aaday last winter jilaalkii ugu dambeeyay ama xilaalkii ugu dambeeyay was waxay ahayd the most fun mataqaanaa farxaddii ugu fiicneed ama ugu wanaagsaneed I have ever had aan weligay mataqaanaa aan qaatay going skiing markaa waa dalxiis meelaha barafka oo kale aadayso ciyaar macnaha meel barafka lagu dul soconayo kale qalab adigoo isticmaalaya going skiing aadidaan skiing last winter jilaalkii ugu dambeeyay was waxay ahayd the most fun farxaddii ugu wanaagsaneed ama ugu fiicneed I have ever had taasoo mataqaanaa weligay aan qaato file waa file waa fashil to file inaad ku fashilanto means micnaheedu waxa weeyaan you adigu do not succeed inaad ku guuleysan in what you tried waxaad isku dayday to do inaad sameyso to file inaad ku fashilanto means waxa weeyaan you adigu do not succeed inaadan ku guuleysan in what wixii you adigu try aad isku dayday to do inaad sameyso since maadaama he is fired oo ku fashilmay to get inuu helo the job shaqo he was wuxuu hasaan inuu rugeysan since maadaama he is fired oo ku fashilmay to get inuu helo the job shaqo he is wuxuu ahaa sad inuu rugeysan friendly waa saaxiibtinimo friendly saaxiibtinimadu sidoo behaving waa inaad u dhaqanto pleasant mataqaanaa si farxadaysan waliba farxad aada kind way hab naxariis ku jirto watuwaar ku wajahan someone qof friendly saaxiibtinimo ama bulshanimo friendly iska bulshanimo sociable way sidoo behaving inaad u dhaqanto pleasant hab mataqaanaa farxad badan kind way hab mataqaanaa naxariis ku jirto tuwaar kaasoo ku wajahan someone qof the friendly animals mataqaanaa the friendly animals xayawaankii mataqaanaa saaxiibka ahaa come up waa u yimi to the girl gabadhi grade waa buundo grade buundadu sideedu score waa buundo ramase mark waa buundo isku macno score mark given la siiyo to someone's work qof shaqadii a grade buundo sida mataqaanaa score waa score ramase mark waa buundo given la siiyo to someone's work qof shaqadii I anigu managed waan maamulay to get saan u helo good grade fiican on my report card mataqaanaa kaarka reportkiisa saan grade fiican ugu helo wasuucan baa maamulay I anigu managed waan maamulay to get saan u helo good grades fiican on my report card macnaha reportkayga saan ugu helo suucan ayaan u maamulay haddii aadan kanaalka horey subscribe soo saarin fadlan hadda saar waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat